dakhliga lagu cuno xamar waa dakhliga ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu talagalay waa runtiisu maalin weyd waxaan dhageysanay Cabdiraxmaan Abdishakuur oo hadlaya xamar waxa jira culture la yiraahdo hayaga la cunaa Soomaa adar waa beentin waxna lama cuno inaga dadka waxay cunaa Soomaaliya magaceedu wixii lagu helo dhan ma inaga cunaa waa ninkii siyaasi oo horeeyay warka yiri hadda lacagta xamar ku xayiran dawladdu kaashkina waa qaadatay mashaariicdina waxay tiri waa ka wada hadlayna hadii kale anaga nagu soo wareejiyo maxay kaashka u qaadatay ومشاريع وقادم العقد ما حمر باسكله فايت تكسب ما يقع بحيي ما عليه قادم سو ما جيد حتى محو كليه عشور بحيه على بنتي سو انا عشور بحيه سوما سو ما جيد كان عصو دن بناك سو استاغيسا حتى كو حمر كقيلناي انا عشور بان على صار بنتود واي عشور تو واحد بحيه قفكي waxan gatay baa bixiye عشورته maxaa loo qaadaa waxa loo qaadaa common interest of all citizens عشور la soo qaado oo nin jeebki ku dhacda عشور lama yiraahdo عشور waxa la yiraahdaa wixii loo soo qaado danta guud dawladdu dakhliga ay soo galay hadaanay danta guud u qaadinin عشورtay qaadanaysa waxay noqonaysaa xalaal noqon mayso عشورta ama waa direct ama waa indirect direct waxa tax waxa weeye عشورta qofka ama kamanigu bixiyo mushaharkaaga soo عشور laga ma jaro هذا بحية كمبريجا دخل السوق عشور لقى ما تشرب كمبريجا بحية لكن هدي قف كلا بحنا يو هذا بحناينين مركب وحلا يراها إن داركتي تاكس هذا نبى على بلا سود دقي بوصاصه درب ولا سود دقي دركي وحسينا وقضي نبى كسي كتاي نكي كسي كتاي نرتيلا كسي كتاي رتيل كن ننتولى شو كسي كتاي ننتولى شو قف بكسي كتاي عشور تيا بحية بقرا سدي بحية قف كودم بيا بحية ganacsatada cashuur ma bixiso beentood waa mushaaraadka iyo ikamka gabadhiga mooyaane alaabta ay gadayaan cashuurta saaran waxa bixiyo qofka end userka ama qofka ugu dambeeya bixiyo ama consumerka marka hadii qof kale bixiyo waxa loo yaqaan indirect tax ka soo war midaal baa arki doona in cadeynaysa Puntland markaad fiiriso cashuurta directiga soo gasha maxay ka timaadaa guriyaha property tax waa laga qaadaa hadda garow iyo magaalooyin badan employee tax waa income tax ki weeye iyo business tax oo laga qaado kambariyada waa toos weeye kambariga bixinaya qofka bixinaya guriga bixinaya waxay kala qaadaa indirect tax waxa kamid ah sales tax soo ma jeedo sales tax waxa bixiya jaakada adiga aad soo gadatay nin Dubai jooga laga soo gaday nin boos jooga ka gato bakhaar leh nin garow jooga buu soo wareejiyo ka sii gaday ninka garow jooga dukaan buu geeyay adiga gatay cashuurta sarada bixinaya waxa kamid ah road tax oo baabuurta waxa kamid ah registration tax oo businessyada iyo waxa kamid ah excise tax waxa la yiraahdo excise tax waxa la saaray sigaarka anagu khamra ma keeno wixii la rabo in la joojiyo ama la yareeyo waxa la saaraa cashuur maasifa oo balaaran qaadko kala ma kamid aha laakiin qaadka cashuur si ay yaqaana hawada lagu kala goosta ka soco hadda slipkan waxa la keenay caawa wuxuu ka yimid freedom dream point waxay ka qaadeen dream latte iyo mulawax galaaskan soo gala waa kaajisanaya iyo mineral water biya iyo shaah lacagta waxay noqotay soo ma jeedin $3 iyo 70 senti waxay ku dareen biyaha iyo 4.50 maxaa la socda fayt tax ma yaga bixiyay ma yareega qaadeen soo ma jeedin حتى محو كليه عشور بحيه على بنتي سو انا عشور بحيه سوما سو ما جيد كان عصو دن بناك سو استاغيسا حتى كو حمر كقيلناي انا عشور بان على صار بنتود واي عشور تو واحد بحيه قفكي waxan gatay baa bixiye ka soo halkan waa example waa ka gudbaya waa soo sharxay maadaama waqtigu yar yahay mar kale insha Allah fursad u heli doonaa nan taxiga oo aan cashuurta ahayn waxa kamid ah fees dawladdu marka qaar kood waxay charge garaysaa fees bay charge garaysaa lacag bay ka qaadaysaa shaqay ku qabatay midna waxa tagtay wasaaradda waxbarashada shahaada cunuga u baahan tahay waxa laga qaaday $5 Soomaa $5 maxay tahay waa fees dakhliga dawladdu leedahay waa fees waxa kamid ah special assessments dawladdu waxay oranaysaa jidka buundada cusbitaalka iyo suuqa isku xirtaan dhisayna waxaan rabnaa dadka deegaanka degan oo jidkaas ka faa'iideysan doona inay lacag bixiyaan
والله عكو دران أما وحورنا إسا جد كان هو بربري وحرمنا كمبني كستينو أنت كهر رئيسة حاجاتيو سبيشال أسسمنت بالله هذا وحكم إذا فاينس عن بينالتيز هدي هذا الترافيق وشيل لها مقالة الجرو والعقوين بالله قسمين الله عارس الله ما قالوا جد كتاجر والشيء سراي أما الله ما بتشاي ساكن الله ما بتشاي ما كنا قاعدين هاي ماشي والشيء سراي جد كبرت كيس تاجين قرب كيسو صار marka baxa dhaqaaqa boor wax kula adeer niman odayaal ah oo eegtay wax mataqaana mutacalimiin oo wax garanaya jidka xogaa ka leexda hadii kale waa ku dakhrayaan moogta marka penalties kan halkaas ka iman kara waxa kale oo kamid ah forfeitures marka qaar kood waxa dhacda dawladdu maxkamad bay qabanaysaa dacwa taala waa imaan weey lacag baa lagu saari karaa $100 buu bixinaya $500 buu bixinaya $600 buu bixinaya inta waa ka sii badan tahay laakiin waqtiyo kale oo aynu haysano baynu si fiican u faahfaahin doonaa commercial revenue واتقان تاس وحوي public authorities كو مركز قاركود شركة اللي صوما شركة اللي مركز قاركود بيهي معمولان ودنا قاركود كورنتا معمولان سيد الصومالي واجه رأيها جرتي وحي لها insurance دولته إلا ده باجري وبتقان عشو اللي يرى بحالكي عيبس كقرن كله هورن جري باجري Somali Airlines وحاصل دوا كمبنية دولته إلا ده هاي ومحاك السوق له دخل فرق بدن وماشي الله دولة دخل كهشة إن دايركتها ميت كصدحات وحوي وحلو يقن عدد الريفيوز تقلية كله وأن لبضع هاي لكن إن دايركتها ويكبت هاي مركز قارئ كدولة ده العقبة الصية IMF لمن بليون بيكوسين ليس government properties دولة دول بايلا هاي وحي لهاي ويجاريسا وحي لهاي ماينس ميل لقطه ويقولانيسا يو أما الذهب لقى قطه أما الدخول لقى قطه وحي لهاي فيشريس ليس سبب العقو قادنيسا وحي لهاي فورستيس وحي يقولانيسا وحي لقى قوسن كرو دول كون الدولة دا إسكالي وحكم إذا بابليك بوروينج دبوا نقوحيا بابليك بوروينج العقب يسود دايما إيسا IMF بيكسود دايما كرتا وحي كسود دايما أفريقيا ديفلوبمنت بانكي أيضا دخل كراكاغا إيمانايا ريكفري أوف لونز العقد دولته قف كل هاي أو عرري بالو حلو قبتي ميل كله أو قلدقب وقال سoo qabtay waa la keenay lacagti waa laga soo recover gareynaya iyo waxyaalo kale oo dakhliga oo dawladdu ay heli karto waxa kamid ah in marka qaar kood baabuur baa la soo dhacay dadkii lahaa la garan waayay dawladdu wax xaraashaysa lacag baa ka soo galaysa waxay lahayd fisheries leesa sibir lacag ku qaadanaysa waxay lahayd forests waxay u galanaysaa wax laga goosan karo dhulkooda dawladda iskale waxa kamid ah public borrowing dib u noqo wax yar public borrowing lacag bay soo deymanaysaa IMF bay ka soo deyman kartaa waxay ka soo deyman African Development Bank iyadoo dakhli kaaga imaanaya recovery of loans lacag dawladdu qof ku lahayd oo cararay baa waxa lagu qabtay meel kale oo galdagob waxa la soo qabtay waa la keenay lacagti waa laga soo recover gareynaya iyo waxyaalo kale oo dakhliga oo dawladdu ay heli karto waxa kamid ah in marka qaar kood baabuur baa la soo dhacay dadkii lahaa la garan waayay dawladdu wax xaraashaysa lacag baa ka soo galaysa ugu dambayn public expenditure laba hadaf buu qabanaya dakhli kharash dawlad gashay laba dan midkood waa in laga leeyahay labada hadaysan ahayn dakhligaasi sharcina ma aha sida lagu qaadana sharci ma aha sida lagu bixiyana sharci ma kow waa to protect the citizens in dadka shacabka lagu ilaaliyo iyo to promote their economic and social welfare iyo in lagu horumariyo noloshooda iyo dhaqaalahooda in lagu horumariyo labada shardi dakhliga aan ku imaan ama kharashka aan ku imaani xalaal ma noqonayo ka soo halkan waa miisaaniyadii Puntland isha ku dhufta waa 2020 miisaaniyadeedii 2019 waxay ahayd miisaaniyadu 103 milyan 2020 waxay noqotay 332 milyan waxa ku darsantay almost 200 milyan lacag dawladda soo saartay بس صار بيوم العقد صار ما وحويه العقيه international كيمانية وأولا الميزانية ده كل شيء ما الميزانية ده الوسطى أنت كل يوم بركة actually دولتنا وحي صارتي وبقول يصدم كام وبقول صدر يسدح لا وحلا مده وح international وحيان أما بنتلان وصار ضعف ماتك هيدا الله الشقية أما هالنقدين يونسيف أما هالنقدين متقانا كير انترناشونال أما هالنقدين العقب بدن بيحيان اللورد ديبي أما أمريكا بحية أما إنجليز بحية أما يوروب بحسي أما ديفلوبمنت بانك أفريكا ديفلوبمنت بانك بحية دخل جاس أردن بنتلان مجال عيدان لقوا قلي سو ما هي هذا العقد حمر كحيران دولته كاش كنا واقعتي مشاريع عندنا واحد تري وكوض حمضينا هذيك اللي عندنا نقص وريتشي محل كاش كوقعتي ومشاريع وقادم
lacagta ma xamar baa iska leh mal weyd waxaan dhageysanay Cabdiraxmaan Abdishakuur oo hadlaya xamar waxa jira culture la yiraahdo waxyaga la cunaa Sooma adar waa beentin waxna lama cuno inaga dadka waxay cunaa Soomaaliya magaceedu wixii lagu helo dhamma inaga cunab waa ninkii siyaasi ugu horeeyay warka yiri ninkii siyaasi ugu horeeyay warka yiri yana dadka been u sheegay dakhliga lagu cuno xamar waa dakhliga ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu talagalay waa runtiisu ما هو حاجة الدولة الفدرال كميزانية ده 1 بليون 330 مليون بيسوى صارتا 630 بليون ولا عق لو سبورت جريء صوماليا مجمع صوماليا لو قعد